Enzo Maresca hogaamiyaha kooxda Chelsea ayaa ka hadlay kulanka adag ee caawa Champions League ay la leeyihiin Barcelona ciyaar ka dhici doonta garoonka Bridge ee galbeedka magaalada London. Maresca ayaa shirkiisa jiraayad ka soo muuqday waxa uu ku sheegay in kulankan Barcelona uu yahay tijaabo weyn, laakiin sidoo kale waa mid la mamnuuco in la bambooniyo. Waxa uu ku adkaystay in Chelsea ay u baahan tahay isu dheelitirnaan u dhaxaysa dhanka weerarka iyo difaaca. Maresca ayaa sheegay in Barcelona ay leedahay khataro badan, tusaale ahaan marka loo eego لاعبينta Roberto Lewandowski, Lamine Yamal iyo Frenkie de Jong. Waxa uu ku dooday in Chelsea ay tahay in ay difaacato weliba si wadajir ah firfircoon marka ay ka qaybgalayso ama ay ka qayb qaadanayso qaybaha daafaca. Maresca waxa uu bogaadiyey kooxda Barcelona waxa uuna ku tilmaamay inay tahay koox la yaab leh isla markaana wax badan laga barto marka ay timaado dhinaca weerarka iyo difaaca. Waxa uu xusay in kooxda Camp Nou ay marar badan u ka bartay sida ciyaartoyda gaar ahaan qaabka ay u hesho fursadaha weerarka iyo qiimeyn marka la siinayo kubadaha gadaal laga soo dhiso. Maresca sidoo kale waxa uu tilmaamay in la maareeyo garoonka kooxda Barcelona ay saameyn ku yeelan karto isaga oo guud ahaanba go'aansaday in uu noqdo mid la dagaalama waqtigani. Waxaan la soo shaqeeyay macallinkii hore ee kooxda Barcelona Pep Guardiola. Waxaan go'aansaday inaan macallin noqdo markii aan arkay qaabka uu ciyaarayay. Maresca waxa uu sheegay in Chelsea ay ka fiican yihiin marka loo eego marka ay la ciyaarayeen kooxda Bayern Munich. Waxa uuna yiri waxaan isku dayi doonaa inaan markaas ka wanaagsanaan doono. Maresca waxa uu carabka ku adkeeyay maqnaanshaha Pedri inuu yahay arrin weyn, isaga oo sheegay in Pedri aanu jirin Barcelona wayna luminaysaa, sidoo kale kubadda cagtu waa ay lumiyaan. Waxa uu sidoo kale xusay in ciyaartoyda sida Lamine Yamal iyo Fermin uu ku tilmaamay inay yihiin hanjabaad weyn oo Chelsea ay tahay inay ka feejignaato. Maresca waxa uu ixtiraam buuxda siiyey kooxda kubadda cagta Barcelona, isaga oo qiray intii kataakadooda haddana ay caddeyn u tahay in Chelsea ay diyaar garoobayso qaab istiraatiijiyad daafac adag ah, weliba weerar fudan iyo isu dheelitirnaan guud. Enzo Maresca ma uusan qaadan in kulanku uu yahay mid fudud, laakiin weli wuxuu aaminsan yahay in Chelsea ay fursad u leedahay inay guuleysato haddii si xirfad leh ay u ciyaarto. Si walbaba ha ahaatee, kulankii u dambeeyay labada kooxood ee Chelsea iyo Barcelona dhacdada weyn ee Champions League ay ku kulmaan waxa ay ahayd 14 Maarso 2018 waxaana 3-0 ku adkaatay kooxda Barcelona. moobilkaaga ka daawo ciyaaro iyo filimaan adigoo adeegsanaya abka Daawo TV. fadlan la xiriir lambarka WhatsApp-ka ee shaashada kaaga muuqda.